السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم. أد بني سلامي أخيارته قالقة قيمها إيا قدرين تبضن ملك الصوت دافع دوني ده أتكجوتين وحني قصو سلامي يا قبلك سيتي أيان إني قصو سلامي يا هدو إلى هيرادو waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban aan iniga siiyo waxyaabihii aan indhahayga aan ku arkay hadda waxaan gaadhay oo kala haatay magaalada Biki ayaan gaadhay waxaan soo guud meeray ama waxaan soo arkay oo indhahayga ku soo arkay dadkii laga soo barakiciyay dhulkoogii saddexda magaalo galbeedka city cundufo cadeyti iyo garbaciisa dadkii laga soo barakiciyay ayaan soo ziyaartay marka waxaan rabaa waxyaabihii indhahayga aan ku soo arkay inaan la soo wadaago haduu ilaahay uu raali ka noqdo videogan waxaan rabaa inaan soo koobo oo inuuna dheeraan ayaan ugu talagalay haduu ilaahay yiraahdo warbixinta kuma koobayo magaalada kala hatay Biki balse waan socon doontaa oo dhowr magaalo ayaan tagi doonaa haduu ilaahay yiraahdo magaalooyinka ay joogaan dadkeena laga soo barakiciyay guryahoogii iyo dhulkoogii kuwa ayaan soo wada guud meeri doonaa haduu ilaahay yiraahdo laakiin hadda ahaan waxaan soo guud meernay magaalada Biki dadkeena ku sugnaa isla magaaladaas wixii halka aan ku soo arkay حقيقة وحن هل فيديو أما لو فيديو أما سطح فيديو أنكو سو كوبي كرو معها محايلة وح بدن أو أنا فيديو جا أن لقى شاعين كرين أما أن ميديا لسه فريسين كرين أيام كو أرجمي لكن حقيقة وحيتها هاي دت كنا آد أي ودبينهن دب بالحسن أو بالعرن أي كود عضي دب تاسي دن كيدون تبا هكذا عضو habas ahaato dibta ugu weyni waxa ay ku dhacday waxay tahay dadkeena halka jooga ee ka soo barakacay saddexda magaalo xaqiiqatan waxa ku dhacday ama waxa gaadhay dhaawac aad iyo aad u weyn dadka halka jooga dhamaantood si guud ayay dhibaatadu ay u wada taabatay indhahooga ay ku soo arkeen dadkaasi waxay ahaayeen dad ilaahay wax siiyay ma ahayn hayjad tuulana ma joogin balse magaalo caasimad ay joogeen ilaahay ayaa qadaray in ay maanta ay noqdaan barakacayaal iyaga oo ah dad ilaahay wax siiyay dadkeena halka jooga waxay u baahan yihiin heel balaaran ay u baahan yihiin oo labada dhinac ah haday tahay shicibka iyo haday tahay dawladaba labadaba u baahan yihiin labadaasi inay iyagu qolada kale ay ku deyso maahin balse waxay u baahan yahay ama loo baahan yahay in la isgarabsado oo dadkaas iyaga ah gacmaha loo fidiyo la garab istaago niyada loo dhiso dadkii ku noolaa gorbaciisa baan inay degaankayga ahaa waxaan ka shaqaysanaynaa xoolo dhaqato iyaan ahayn xoolaan ka shaqaysanayno baasiyac bitir ku ahayn kolka waxa gumaad xoog leh baan gaadhay waxaan naga gaadhay canfarka dawladdiisa maxay ahayd liyuugiisa macala shicibkiisa iyo halkaan ugu gumaaday gumaad foolxun baan noo geysto ganaaxa maxay adduunyo wixii aan mijaha dhulka cawska ku canaysay iyo intii maal aan ku haysanay reerkaba waana naga qaatay dadka yagiina waa la suuqay maxay hayday wax nool oo la soo baxnay ma jirtee annaka oo maxay hayday walaalahaya iyo layta maxay hayday ubadkayagii iyana nagu hor gowracay marka 5 kilomitir meesha ay qaraf baan gurguurad ku nimidnay kolka kii walaalakayaga ahaa iyo kii kala annakiyo sida u dayin iyabay maxay hayday annakiina xabadii gumaadkiina gaadhay gurguurashi iyo silic iyo roob baan halka ku nimidnay daranyo weyn baan fara badan baan mudanay halkaaba ay Soomaalidii naga soo qaaday halkan gobolka City Biki baan na keenay maxay hayday dhalintii Biki joogtay gobolka Biki joogtay
iyo kolka iskooladii ciyaalkoogu ay waxbarashada ugu dhigayeen gelisay iyo kiina dhexdoodii bay iyayna beryo gasheen beryogelintii ubadkayagii la duubay ka mid ah een halkaa ugu nimidnay ayna beryo geliyeen guryaha dugsiga iskooladii ubadkana gasheen waxaan ahaynoo dawlad oo dhabarka annaka naga soo gaadhay maanta horteed meen arag wax noo soo socdana rabbigaa garan intaana ta ilaahay baan ku noolayn iyo dadkayaga aan dhex joognay een u nimidnay hadday gurina gashaan iyo hadday gurina tiraan iyo hadday biyan meel nooga soo daraanba dadkayaga aan soo gaadhnay iyo annakana iyana gacan qabtay guryahana na gashay gurigana ubadka wax qofkii aan wadan qofkiina naga reebteena nagu daba gowracay maahayna iyo noo gaajo tiray wax dhabarka dawladda naga soo gaadhay ma jirto deehana na soo gaadho guryo ma haysano gobolkayagii waa la haystaa maxay ahayday guryanahana na soo gaadho ubadka iyo kana aan cadifnay isgooladoodii aan ka haysano hana naga baxsho meel hana naga geeyo maxay ahayday hana na soo gaadho dawladda Itoobiya hadday joogtaa hana na soo gaadho waxaan anaka u codanaynaa halkayagii aan ka nimidnay ee dadkayagii mawdkiisii iyo raqdiisii aan kaga nimidnay hana na geeyo dugsiyowga hana naga kaxeeyo ubadka waxbarashada ku dhiganayay hana na qaado halkayagii hana nagu cesho haddana nagu soo tabi kara hota koobaad hana na qaado guryahayagii hana na geeyo marka garda ciisahan ka soo barakacay waxa deena soo barakacayna waad ka garanaysaan waa la wala maqlay waa jabhadda Canfarta iyo dawladda Canfarta soo barakaysay marka dadkii halka lagu xasuuqay handadii ka soo hadheedanahay markaan soo barakacnayna de waxaan inaan ka joognaa degmada goota dikidan joognaa wax aan hayno oo de oo nahagaarta aan hayno iskoolkii ciyaalka loogu dhigaydaan fadhinaa waxna na siiyay ma jiro dharaartii u horeysay aan inana ayaa kiiskiis 25 kilo bariisa ayaa saxaabada saliid ayaan na siiyay dadkii walaalahayeen meesha ugu inanay iyo dhalinyartii aanu inanayna de waxday nooma hayaan hay'ad noodeenin halkaas iska joognaa waa saas iska dareysanahay marka sidaas arkagu waa kaas de cid kastina way iska ogtahay halkaan ka inanay iyo saan soo barakacnay iyo dhibta neeshay ka caabanahay reer garba ciisaha dhibaatadii nagu dhacday 5 bilood hor maan qabnaa 5 bilood hor aan qabno halka aan soo barakacnay halkaas aan imanay halkaas aan imanay maalintii aan halkan iskuulkana soo gashay 25 kilo oo bariisa oo inana siiyo maahine oo dhaartii barigal noo siiyo maahine inta bilood ee ka dambeysay 4 bilood kale cid hay'ada ama cid dawlad oo koonno imaata ma hayno